بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا عبباتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن آدي عاد ونحي وأن مقلي شلي كوبيو طبنكي هبينمو وكدعدي قرح لوجو بيكسدي المجالوين دلك جيبوتي oo ay ku dhinteen daawax fara badan iyo dad fara badan ay ku dhinteen inta ay aad baan uga xumahay waxaan hogaaminay anu waanahay afayeenka dibatiifka Somaliland Hussein Nelson Mandela waxaan aad uga xumahay dhacdada dhacday ee loo geystay dalkan Djibouti waxaan aad iyo aad uga xumahay Djibouti waa dal jira oo horan maray waxaan aad uga codsanayaa ummadda reer Djibouti iyo shacabka reer Djibouti iyo dawladda reer Djibouti إن أي لاليان نبتقليدا يحسنوليدا دلك جيبوتي مدحوينها يعينمدا iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waxaan ka baryayaa inay si degdeg ah waxa ay degdeg uga soo qabato ummadaha qowmiyadaha South Africa iyo dhulalka Afrikada ana waa la qarxiyay waxaana ka dambeeya dadkan qumaacaya dadka muslimka dilaya ee al-shabaabna mar walba way cadaysan tahay dal walba way qarxisay Kenya qarxisay ilaa meel walba way qarxisay Soomaaliya qarxisay Djibouti wata ku noqotay waxaan aad uga baqayaa oo aan tacsida uga dirayaa intay ka dhimatay iyo inta hadda dhaawacoogu aad u yar yahay ayaan tacsi aan u dirayaa waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun madaxweynaha Djibouti waxaan ugu dirayaa hambaliyo waxaan leeyahay ummadda reer Djibouti ha isku duubnaato nabadgelyada iyo xasiloonidana ha ilaaliyaan ummadda reer Djibouti waa dhaawac ayaa loo geysanayaa horena looma qarxino Djibouti looma qarxin laakiinse way istifaacda Djibouti difaaca ay isku difaacayso waxa ugu xun Soomaaliya ayaa ciidamo ka jooga Djibouti marka saadarteed baa loo soo dhuumanaya oo loo qarxinaya Djibouti wax kale maaha Djiboutina way istifaacaysaa inta dhaawac imika gaadhay Djiboutina ee dhaawac fara badan yahayna lagama yaabo dhaawac dambe oo iyo qarax dambe oo dhacaya waayo dawladda Djibouti way istifaacaysaa hogaanka iyo shacabkuna way isku duuban yihiin aad baan u salaamayaa waliba waxaan maqlay gudoomiyaha kulmiye Musabixi Cabdi iyo golaha dhexe ee Musabixi Cabdi oo hogaamiyo inay isqabsi ay bilaabeen oo hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siiraayo oo doonaya in lagu celiyo 5 sanadood oo soo socota musharaxa madaxweynenimada kulmiye inuu ku qabsado xoog iyo eedeen uu ku qabsanayo anagu waxaan inta ugu daraynaa Musabixi waa nin jira Musabixi waa nin taageerka iyo nolosha yaayaha Musabixi waan taageersanahay kama xumin Siiraayo kama xumin laakiin waxaan leenahay shaandeyntan uu shaandeynayo golahiisa wasiirada ha ka daayo oo ha eego nabadda iyo xasiloonida Somaliland iyo aqoonsigeena degdega ah ha eego yaanu ku degdegin wax walba dadka masaakiinta ee ku dhaqan Somaliland waxay hambaliyo u dirayaan oo ay ka xum yihiin Siiraayo eedantan uu soo jeediyay wasiirka dakhliga Somaliland aadaan ugu xunnahay waanu eedeynayna kulmiyana uu soo baxaya la ismana weydiinayo golaha dhaxana way heshiinayaan intaasan hambaliyo ku diraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh